kulan muqdisho ku qabsaday siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame isla markaasna ah hogaamiyaha xisbiga wadajir waxaa qayb ka ahaa beesha habargidar dhaqankooda oo ku taageerayay musharaxnimada hogaamiyaha xisbiga wadajir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah musharaxiinta doorashada soo socota 2020-2021 ayaa waxa uu taageero garab istaaga ka helay beesha habargidar iyagoona sheegay inay yihiin musharaxa kaliya ay doonayaan in ay qayb kaga noqdaan musharaxiinta ku baratamaysa xilka madaxtinimo ee Soomaaliya. Tallaabadan ayaa la sheegay inay bilow u tahay ololihiisa waxaana lagu tilmaamay taageerada beesha ay ku haysato in ay muujinayso in cabdiraxmaan uu wado dadaal xoogan oo uu codka ku kasbanayo. kulanka lagu taageeraya cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa goobjoog waxa ka ahaa hoggaanka sare iyo dhaqanka midnimada beelaha habargidar kuwaasi oo madasha ka sheegay in ay taageerayaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame. Professor Cabdiqaadir Maxamed Shirwac oo ah gudoomiyaha dhaqanka iyo midnimada beelaha habargidar ayaa waxa uu ku sugnaa kulanka isagoona ballan qaaday inay garab istaag u muujin doonaan cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ah siyaasi saameyn weyn ku leh arrimaha Soomaaliya. cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in taageerada ay ka dhigan tahay ama ay ku weyn tahay midnimada codadka ay xildhibaanadu wax dooranaya ku bixinayaan halka ay rabaan, isagana ballan qaaday in haddii kursigan uu ku guuleysto uu ka shaqeyn doono midnimada dadka Soomaaliyeed gaar ahaan beelaha isaga taageerana uu si gaar ah ula socon doono sidii horumarkooda qayb kaga noqon lahaa.